meydad fara badan halkan lagu duugo dad badan oo dhintay oo kala duwan oo maaragtay Soomaaliyada halkan ku jira waxa soo baxda dhulkan inay dawladdu u baahan tahay oo baahi xoog leh ay jirto dowladda federaalka oo amar ku bixisay in 10 cisho meydadka looga saaro qabuuraha Iskool Buluusiyo Cabdiraxmaan Cabshakuur oo Xasan Sheekh ku tilmaamay in aan wax ka xishoonaynin xiisadda qabuuraha Iskool Buluusiyo oo xoogeysatay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan eegi doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in 10 cisho meydadka looga saaro qabuuraha Iskool Buluusiyo taas oo la yaab ku noqotay shacabka Soomaaliyeed mar kale waxaa dib bilaabatay doodii xooganeyd ee la xiriirtay qabuuraha Iskool Buluusiyo ku yaala oo dowladdu markan ay si cad u sheegtayba in dowladdu ay u baahan tahay degdegna lagu amray qoysaska ehelada ay ku dugan yihiin goobtaasi in muddo 10 cisho ku siman gabi ahaan laga guuro qabuuraha meydkan loogala baxo arrintan ayaa fadeexad qaawan oo weyn ku ah dowladda madaxweyne Xasan oo markii hore looga taagiyo mara la'aa dhulka danta guud iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay maantana qabuurihii ay ka daba tageen oo xitaa meeytidii ma dhaafin dowladda madaxweyne Xasan tanina waa ceeb kale iyo wajigabax weyn oo horseedi karta in Xasan Sheekh uusan helin fursad saddexaad oo dalkan madaxweyne uga noqdo haddaba wasiirka gaashaandhigga taliyaha booliiska gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir iyo culimo ay ka mid yihiin Sheekh Cali Wajiis iyo Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa shir jiraayad ku qabtay qabuuraha Iskool Buluusiyo degmada Xamar Jab ee gobolka Banaadir fadwo iyo amar ayayna soo saareen mas'uuliyiinta halkaasi booqday mas'uuliyiintan oo dhammaantood la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyay amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaasi oo lagu dalbanayo in degdeg qabuurahaas looga saaro meydadka ku aasan halkaana dhismo laga bilaabi doono mas'uuliyiinta ayaa sheegay in muddo 10 cisho ah meydadka looga saaro qabuuraha Iskool Buluusiyo iyagoo cadeeyay in dhulkaas la dejin doono ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliya sida ay shaaciyeen mas'uuliyiintii booqatay qabuurahaasi wasiirka difaaca Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in wararka la faafi doono inta la iska dhaafo loo hogaansamo amarta dowladda maadaama dhulkan loo qorsheeyay howlo dan guud ah oo la dejin doono ciidanka ilaalada xeebaha dalkan Soomaaliya dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa sheegay in maamul gobolka Banaadir oo qoysaskan eheladooda ay ku aasan yihiin qabuurahaas ay ka gacan siin doonaan sidee ula bixi lahaayeen waliba si degdeg ah Yabo ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay saari doonaan meydadka haddii la waayo ehelo kala baxa qabuurahan loo bedelayo xerada ciidamada ilaalada xeebaha dalkan Soomaaliya sida hadalka uu dhigay culimadii joogtay goobta oo ay ugu waaweynayeen Sheekh Bashiir iyo Sheekh Cali Wajiis ayaa diiniyan uga hadashay arrintan iyagoo sheegay in ay bannaan tahay in meydadkan laga saaro qabuuraha haddii loo soo baahday dhulka oo dan guud lagu qabanayo sidoo kale culimada ayaa dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamirta dowladda maadaama dowladdu ay mas'uul ka tahay dadka iyo dalka dhulkii ay u soo baahatana ay waajib tahay inay hesho sida hadalka uu dhigay mucjiso iyo la yaab ayay ku noqotay shacabka Soomaaliyeed in maanta si cad loo shaaciyo in dhulka qabuuraha Iskool Buluusiyo ay dowladdu u baahan tahay 10 cisho loo qabtay dadka halkaas eheladooda ay ku dugan yihiin inay ugala baxaan mar kale dhaawac siyaasadeed oo xoogan ayaa gaaray madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa haddii aan arrintan laga hortagin oo ugu yaraan aan la baajin in qabuurahaasi laga saaro meydadka ku aasan tanina mar kale waxa ay muujinaysaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadeexad weyn oo dhanka dhulalka ah ay dowladdiisa dhex dabaalanayso maantana xitaa qabuurihii aan laga xishoonin oo meeytada xataa aan laga xishoonin tanina waxa ay ka dhigan tahay in madaxweyne Xasan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna dhaawac siyaasadeed oo weyn ayay tani ku noqonaysaa dowladdiisa iyo nidaamka dalkan ka jira maadaama dadkii aan laga xishoonin noolaa meeytidiina looga daba tagay qabuuraha oo maanta la saarayo dad la fan noqday oo 20 iyo 10 sano ka hor la aasay fadeexad kalena ay ku noqonayso afartii bishii May ee sanadkan ay ahayd markii warbaahinta ay qabsatay warar ku saabsan in qabuuraha Iskool Buluusiyo meydadka lagala baxayo waxaana xilligaas wararkaasi beeniyay dowladda Soomaaliya hase yeeshee bil kadib waxaa maanta dowladda Soomaaliya si rasmi u shaacisay
jiritaanka warkii ee la baahiyey waxaana lagu amray dadka ay ehladooda ku aasan yihiin qabuuraha iskool buluusiyo inay meydadkooda ee la baxaan oo dowladdu dhulkani u baahan tahay, taasoo mar kale noqotay fadeexad weyn oo qaranka iyo dowladda Soomaaliyeed ku habsatay. qoysaska ayaa hadda la yaaban go'aanka dowladda, tanina waxay ka dhigan tahay fadeexad kale oo weyn iyo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ay ku noqon doonto dharbaaxo ee xitaa u diidi doonta in dalkan ay hoggaan kale ka noqdaan. dowladda madaxweyne xasan xishoodkiiba way ka tageen, baarlamaankii la xisaabtami lahaana aadan madoobe ayaa jaabka xasan geliyey, laakiin shacabka muqdisho ku nool baa dhibanayaal ah. waxayna tani ka dhigan tahay in la abaabulayo kacdoon shacab, islamarkaana ay abuuri karto xaalad siyaasadeed oo aada u adag haddii aan la helin xal dadka caasimadan dhulalkooda looga badbaadinayo. dhinaca kale, siyaasiga caanka ah ee cabdixaan abshakuur warsame ayaa isna war ka soo saaray boobka qabuuraha iskool buluusiyo iyo in dowladdii qudheedii aanay xishoon, isagoo ku eedeeyey madaxweyne xasan iyo dowladdiisu in ay xishoodkii ka tageen, markaana dadka ay u muujinayaan aamin darro iyo in laga aaminbaxo hadalka dowladda, isagoo si cadda u sheegay in tani fadeexad qaawan ay ku tahay dowladda madaxweynaha uu hogaamiyo. qoraalka cabdiraxmaan ayaa u qornaa sida tan: aaminaadda waa cunsurka ugu weyn ee shacabka iyo dowladda u dhexeeya, haddii la waayana aysanba dowladnimadu shaqayn karin. wiilka uu dhalay allah u naxariistay cabdi muriidi dheere ajakis, markii uu meydka aabihii la baxay waxaa lagu qasbay in uu beeniyo in dowladdu ay ku amartay arrinkaas oo ay dhulka doonaysay, laakiin taa beddelkeedu uu iskiis ula baxay. maadaama ay og yihiin in la aaminaynin ayay madaxdii dowladda iska soo hormariyeen culimo si loo aamino. waa arrin laga xumaado in culimadu ay noqoto marin wax lagu xalaaleysto, ayuu yidhi masar cabdiraxmaan cabshakuur warsame. waxay madaxda dowladda maanta caddeeyeen in aan qowlkooda la aaminaynin lana aamini doonin. waxa kali ahi ee u haray ayaa ah in ay maalin kasta raadiyaan cid ay kaarkooda xoqdaan, ayuu yidhi cabdiraxmaan cabshakuur. ugu dambeyn wuxuu yidhi waxay joogaan halkii uu suubanaheena maxamed uu ka yidhi, haddii aadan xishoonayn samee waxaad doonto, taas oo ah xadiis nebiga sal ly slam oo qofkaan xishoonaynin islamarkaana aan sariig lahayn waxa uu doono samee ee lagu yidhi, waana waxa uu ku sifeeyey madaxweyne cabdiraxmaan shakuur dowladda madaxweyne xasan iyo sida maanta ay u dhaqmayso. ugu dambeyntii, shacabka caasimadda muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed way la yaaban yihiin xiisadan qabuuraha iskool buluusiyana way sii xoogeysanaysaa, waxaana suuragal ah in kacdoon shacab uu qarxo, taasina dhibaato weyn ay ku noqon doonto dowladda xasan sheekh oo hadda la dhiban mucaaradad xoogan iyo in nidaamkii dowladnimo iyo heekalkii uu sii dumayo. xaalku uu adag yahay, boobka dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay way soo badanayaan, xitaa qabuuro iyo meydadkii lama cafin oo lama nabadgelin. waxaana tani astaan ay noqon doontaa madaxweyne xasan, kuna adkaan doontaa in fursad kale uu helo si dalkani dadka uu sii hogaamiyo. saaxiibayaal daawadayaal, waa naga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. nabadgelyo.